mahadsan fadlan fariista miidiyaha fariistaan idinkoo mahadsan fariista waa mahadsantiin soo dhow gudoomiye adigoo mahadsan mahadsan gudoomiye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين مدن قدومي كحيينك الوضعات قلاها الشعبك مدن قدوميها قلاها أغل كسره البرلمانك فدرالك الصوماليات مدن قدومي كحيينك الوضعات أغل كسره مدن أيال دمان وسلامتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxaan salaan gaar ah salaamayaa howlwadeennada golaha shacabka oo ayagana meeshan ku howlan sida uu qabo qodobka 9aad xarafkiisa bac ee hoosaadka golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya haddii uu xilhaynta xafiiska gudoonka uu ka degayo waa inuu golaha ku wargeliyaa qoraal ahaan ama u soo mariyaa warbaahinta maanta oo ay bishu tahay Abriil 2018 waxaan golahan sharafta leh hortiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo in aan xilkii amaanada ahaa ee Allah subhanahu wa ta'ala ka sokow aad idinku igu amaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo waxaan idinka codsanayaa inaad xilhayntii gudoonka aad iga cafisaan istiqaaladeedana iga ogolaataan waajibkayga ayaan ka hoos marayaa haddii aan go'aankaygan tafaasiil idinka siinin waxaan kaloo ay ila tahay inaan dow u leeyahay inaan idinkana codsanayaa inaad fursad ii siisaan inaan si kooban wax uga sheego arrimihii ugu muhiimsanaa ee golahan u soo qabsoomay muddadii labada madal ee xilhaynta aan qaranka ugu soo adeegay baarlamaanka 9aad iyo madashan 10aad ee golaha shacbiga aan hadda ku jirno hor iyo horaan waxaan caddaynayaa ma jiro maanta qof ama koox guulaysatay ama laga guulaystay ee waxaa guulaystay shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo fiiro dhow u lahaa hadba sida aan ugu dhaqmayno una fulinayno xilka ay noo dhiibteen waxaa guulaystay sharraynta sharciga iyo dhaqanka dimuqraadiyadeed oo u horseedaya in nabad iyo xasilooni iyo codayn ama kala roonaansho lagu kala wareejiyo xilalka siyaasiga ah ee lagu matalayo shacbiga nidaamkaas oo dan u ah dowladnimada iyo danta guud ee muwaadin kasta Soomaaliyeed iyo dadweynaha ku nool Soomaaliya waxaa guulaystay golaha shacbiga oo asagoo isqab ah kulanka golihiisa u wada dhan yahay u wada goobjoog yahay una diyaar ah inuu horey u gudagalo howlaha loo igmaday waxaa guulaystay culamaa diinka iyo caamada Soomaaliyeed oo habeen iyo maalinba qur'aan akhris wacdi iyo wacyigelin u taagnaa sujuudana ku alla baryayay badbaadinta dalkooda iyo dowladnimadooda waxaa guulaystay dhalinyarada wiilal iyo gabdho leh oo marxaladii oo ah madaxdii berito siiba ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada sare ayagoo ku dhugaagsan akhrinta dastuurka iyo heer hoosaadka golaha fasalladooda ama fasallada bannaankooda ka abaabulay aqoon isweydaarsiyo oo si dhow ugu kuurgalayay geedi socodka lagu xallinayo kala aragti duwanaashada madaxdooda Soomaaliya ayaa guulaysatay dhammaanteena waan wada guulaysanay guushaasna mahaddeeda Allah leh subhanahu wa ta'ala Allah hayo adiga wax walba awood aan la loodi karin ku leh Soomaaliya sida u roon oo tiradaada ku jirta u yeer ka xildhibaan ahaan qof kastoo naga mid ah
inta aan loo xilqaamin xafiiska xubinnimada golaha si waafaqsan qodobka 3 ee heer hoosaadka wuxuu kitaabkii alla ku maray dhaarta dastuuriga ah ee oranaysa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka ku yaala waxaan alla ogaan hortiina iyo shacbiga hortiisa si hubaal ah oo dooc ah oo aan wax dareen ah ama shaki ah laabtayda ku jirin u cadaynayaa inaan xilka iyo waajibaadka guddoonka intii kartidayda ah u soo gutay si daacad ah oo danta iyo wanaagga guud shacbigeenna dalkeenna iyo diinteenna islaamka ku jirto waxaan kaloo caddaynayaa aniga ogaalkayga inaan intii kartidayda ah soo ilaaliyey oo intaan noolahayna ilaalin doono oo aan difaaci doono dastuurka iyo shuruucda dalka u degsan mabda'aas ilaalintiisii ayay maanta ka tarjumaysaa inaan idin hor imaado istiqaaladeydana idin dhiigo ammaanada aad igu xilqaanteen 11 janaayo 2017 aan idin soo celiyo ayadoo golahan jiritaankiisii dadqabo xubnihiisa oo isqaba oo ay wada goobjoog yihiin maalmahan dambe waxaa jiray in kuwa alla ka cabsigooda yar yahay ay baraha bulshadeed ku tabinayeen lacago malaayiin ah layga siistay istiqaalada iyo xilka degidda haddaba anigoo ku taagan nuxurka dhaartaas aan horay u soo maray waxaan si alla ogaan ah u rabaa inaan hortiina ka caddeeyo in aysan jirin wax dhaqaale ah oo laygaga iibsaday istiqaalada dhiibiddeeda laa dowladdeena walaa dowlad shisheeye ayagoo markhaati iyo goobjoog ahaayeen markii aniga iyo madaxweynaha arrintan aan ka wada xaajoonaynay waxay ahaayeen arrimo muhiim u ah qarannimada iyo jiritaanka dowladnimada dalkeena kuwa u dan ah xasaanadda xubnaha iyo xurmada xarunta golaha shacabka waxaan ku heshiinay inaan si dhow ugu wada shaqayno danaha iyo wanaagga guud ee dalka iyo xasilinta siyaasadda dalka wuxuu ii ballan qaaday in uu igala tashan doono igana tixgelin doono arrimaha masiiriga oo ah dalkeena inaan iska kaashanno arrimaha sharci dejinta anigoo xildhibaan ah ma jiro wax kale oo maadi ah wixii intaa ka duwan oo aad baraha bulshada ka aragtaan waa haraagii dhaqan xumadii hore oo lagu baabi'iyo sharafta iyo karaamada iyo sumcadda mas-uuliyiinta qaranka iyo culamaa udiinka waxaan soo jeedinayaa in arrinkaasi fiiro aan u yeelano marxaladda dib u eegista heerka saxaafadda anigoo kuma fiicni adeegsiga barahaas bulshada ee usgaga ay soo tabin doonaan fadlan walaalayaal waxa igu tirana ee iiga tura kuwa iyaga ah waxaan xusuusinayaa orahda rabbigeena oo yidhi alyawma naftimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaxsibuun maalin baa jiri doonta oo afka la niibayo gacmahooda ay hadlayaan lugahoodana ay markhaati kacayaan waxyaabaha ay ku kacayaan maalintaasa noo ballananiyaya mudanayaal guddoomiyenimada ka horo waxaan ahay soomaali allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu igu manaystay nicmooyin badan aan soo koobi karin waa alxamdu lilaahi ma haddaa asagaale subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo igu manaystay oo aan nasiib weyn oo aan nasiib u ii siiyey inuu ii xilqaamay inaan muddo 6 sano ku dhow hogaamiyey xafiiskan sare oo ah hoyga dowladnimada iyo heeda dowladda laga unkiyo ahna halka kayshaynta u ah kuna dhowraarsan tahay gobonnimada iyo siyaasada qaranka laguna ilaaliyo taasna waa mahad allah subxaanahu wa tacaala alxamdu lilah haddana subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray inaan inuu mar kale igu manaysto nicmadan weyn oo ah inaan maanta sidka xilka iyo culeyskii uu lahaa iga dejiyo ayadoo xubnihii golaha shacbiga oo fulansan oo midaysan oo aan kala jabneen taana waa mahad alle ee alxamdu lilah waxaa kaloo sharaf ii ah aan kuna farxaya aanu ku faanaya inaan soomaali ahay kana mid ahay xildhibaano soomaalinimo iyo soomaali jeceyl qabta aan aqalkan shacbiga oo ah codkii shacbiga ku dhex joogo kala shaqeeyo
horumarinta dalka iyo baraaraha shacbiga iyo dib u fufinta dhidib u aasida dowladnimada Soomaaliyeed. si kastoo aan u kala ra'yi duwannahay mar walba aan u heelanaano una weer duuban midnimada ummadeena, difaaca diinteena, dalkeena iyo dastuurkeena iyo daryeelka iyo baraaraha dadkeena. ilaa maanta waxaan dowladda iyo dadweynaha Soomaaliyeed u soo adeegay 56 sano. khibrad ahaan waxaan idin sheegayaa dunta qofka ama jinsiga Soomaaliyeed oo Allah subhanahu wa ta'ala ku abuuray wax la heli karo ma aha. waa dun wanaagsan oo wax la mid ah caalamka ka jiray. shacbiga Soomaaliyeedna waa shacbiga ugu wanaagsan oo jecel xukun dowladeed nidaamsan si fududna arrimahooda loo maamuli karo. wuxuuse u baahan yahay cadaalad. waxaan guud ahaan u mahadinayaa dhammaan xildhibaanada dhan walba ay mooshinka ama soo jeedinta uga soo jeedeen kuna ammaanan yihiin adeegsiga agabka dastuuriga ay adeegsadeen. waxaan mar kale xildhibaanada xusuusinayaa markii tirada guud ee shacbiga Soomaaliyeed loo qaybiyo 276 xildhibaan kasta oo golahan ka mid ah wuxuu u dhigmaa oo matala 250,000 qof oo Soomaali ah. saa daraadeed waxaa iga dardaaran ah fadlan markii aad codeynayso oo aad wax ogolaanayso adigoo xog ogaal ah ku ogolo. haddii aad wax diidaysana xog ogaalnimo ku diid. sidoo kale markii aad wax saxiixaysana ha ku degdegin ee xog ogaalnimo ku saxiix. codkaaga waa ammaano, culays iyo dareemana mar walba culayska uu codkaagu leeyahay. dhammaan xildhibaanada way ku ammaanan yihiin sida aad ugu gunta xiran tihiin gudashada xilkiina idinkoo weliba ku shaqaynaya duruufo adag oo nafsi hore ah oo ay weheliso xaalado amni darro ah iyo annagoo u adkaysanayno dhibaatooyin kaloo badan oo aan nala ogeyn. sharaf weyn bay ii tahay inaan ahay xubin idinka mid ah. waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinla joogayo halganka horumarinta dalkeenana halkiisa aan ka wadayno, dadaalkana aan labalaabi doono. intaan hadalkayga sii gudagelin waxaa halkan mudan inaan mahadcelin u jeediyo dhammaan shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan sidii wacnayd ilbaxnimada iyo bisaylka ku dhisnayd ay qadiyadani noogu taageereen. waxaan guud ahaan ka raaligelinayaa welwelkii arrintan siyaasadeed gelisay. waxaanse u xaqiijinayaa in ay leeyihiin gole ka wakiil ah oo leh karti iyo bisayl siyaasadeed oo mushkilad kastoo timaada karti u leh in ay xalliyaan. waxaa kaloo aan mahad u celinayaa guddoonka iyo xubnaha golaha aqalka sare oo u anaakacleeyey isuna xilqaamay xallinta khilaafka ka soo dhexgalay golaha shacabka. sidoo kale culamaa udiinka, ururada bulshada, ururada dhalinyarada iyo ardayda, ururada haweenka, ururada naafada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. dhammaan waa ku mahadsan tihiin talooyinkii sida joogtada ah aad igu soo tabinayseen. dhammaan ha iga raalli noqdaan haddii ay jiraan qaarkii ka niyad jabay go-aanka tanaasuka aan qaatay. go-aankan aan qaatay waxaad ku fahmi kartaan sida qisadii xukunka Nabi Daawud عليه الصلاة والسلام وكلا قرنقي labadii haweeney isku qabsaday dhallaankii mid walba tiri aniga dhalay oo Nabi Daawud yiri keena aan idin kala gooyay deedna hooyadii dhabta ahayd ee dhashay ka tanaasusay in la kala jaro. xaaladda
mahadsantihiin hala aamuso waa mahadsantihiin hala aamuso badan aamuso waa mahadsantihiin xaalad sidaa u eg baan ku tanaasulay intii golahayna xaalad sidaa u eg baan ku tanaasulay intii golahayna la kala goyn lahaa anigaan tanaasulay aamuso hala dhegayso gudoomiyaha aamusa bikulli ixtiraam waxaan si gaar ah idinkala dardaarmayaa in la ilaaliyo shaqaalaheena xirfadlayaasha ah ee aan soo gelinay shaqadii ugu xoog leh shaqo barid xoog leh anigoo si mug leh ugu mahadcelinayo sida sharafta leh ay igu soo dhabar adeegeen golaheena sagaalaad iyo oo isugu jira kuwa rayid ah kuwa amniga ah ay kuwa amniga ahna ay kusoo nafwaayeen sanadihii lasoo dhaafay oo mudan in la xusuusto sida dhamme gurxan oo ahaa geesigii isku gudbay gaarigii lala doonayay in baarlamaanka lagu dumiyo naxariista janno allah siiyo dhammaantood tan iyo intii ay bilaabatay mashkiladda mooshinkan anigu iyo tiro badan oo xildhibaano ah ma codsanin wax kale aan ka ahayn laba arrimood oo kale ahaa in sarreynta sharciga la ilaaliyo oo codayn dastuurka iyo xeer-hoosaadka waafaqsan lagu xalliyo ama wada hadal iyo xal siyaasadeed lagu soo afjaro intaas waxaa dheeraa inaan si buuxa u wada ogolaanay talo kasta oo la soo jeediyey oo labadaas qodob u dhow waase loo dhagaduglaan waayey saas daraaddeed inaan maanta mansabka guddoomiyaha ka istiqaalado dhowr arrimood baa u sabab ahaa oo aan loo baahnayn inaan halkan soo wada saxno waxaase ugu muhiimsanaa anigoo garwaaqsaday waxaan doorbiday inaan ka mid noqdo xallinta azmada siyaasadeed ee ka aloosantay mooshinkan oo aan qayb ka noqonin carqaladaynta xalgaarista maskaladda waxaan garwaaqsaday haddii maskaladani aan dhaqso loo soo afjarin waxaa ii muuqday saansaamo usii tarmi karay ama sababi karay burburka golaha shacabka ama ugu yaraan waxyeelo weyn u geysan karay badqabka iyo haybadda golaha shacabka waxaan doorbiday inaan u istaago jiritaanka iyo badqabka golaha iyo midnimada golaha shacabka haddii aan gol hore usha dhaxda laga qaban waxaa iisii muuqatay in golahu qarka u saarnaa inuu qaato go-aan garabmarsan dastuurka ama xeer-hoosaadka taasoo noqon lahayd bar madow oo taariikhda dalkeena weligeeda ka tirmid saa daraaddeed waxaan doorbiday inaan golaheenna lagu eedaynin kana badbaadino inuu baalmaro saraynta sharciga ama ku kaco wax baalmarsan dhaqan wanaagga dimuqraadiyadeed ee baarlamaaniga ah markii aan arkay wax u eg cudud sheegasho waxaa si dhow iigu muuqatay in sii socodka kala aragti duwanaashada dhexdeeda dhaawac la isku gaarsiin karo ama dhiigba ku daadan karo saa daraaddeed ma ogoli mana ogolaan karin in daraadeyda uu qofna dhaawac u gaaro waxaan garwaaqsaday in shacbigeenna oo naga sugaya inaan ka shaqayno sugidda iyo ilaalinta gobonnimada iyo dhisidda dhidib u aasidda hay-adaha dowladnimada iyo in laga samata bixiyo xaaladda cakiran shacbigeenna oo aada u dhiban ma mudna ma istaahilo mana xamili karo khilaaf siyaasadeed dheeraada waxaan garwaaqsaday oo aan tixgeliyey talooyinkii akhyaarta shacbiga iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka si joogta ah noogu soo tabinayeen talooyinkooda oo u badnaa in la kala roonaadaa roon waa marag madoonto dowladnimadeena oo aan weli tigaadin haddii aan loo turin in jiritaanka khatar galayo saa daraaddeed waxaan doorbiday in aan annaga ka roonaano oo maanta ammaanadii xilka guddoonka golaha shacabka oo aad iigmateen 11 janaayo 2017 aan si degan dib idinku soo celiyo si waafaqsan dastuurka iyo xeer-hoosaadka golaha shacabka sababahaas oo aan garwaaqsaday iyo kuwa kale oo badan oo aan halkan la sheegi karin baa gundhig u ahaa inaan talaasulo waxaan shacbiga soomaaliyeed guud ahaan iyo mudanayaasha golaha shacbiga
كعسنيا إن الله سبحانه وتعالى درتيسا عفيان هدي أوجره وحقف يقدعي أما إري آن إري إيقاق حمادين أما وحمناسب أهين إيقاكين فضلا در إلهي عفيا أنيقو فولينا دردارتي آده أو إيقصو كوريي أو أهيد هذين والبا انتابا سيحان سامح قفكاد وحكت كتبنيش dhammaan xildhibaanada madaxda Soomaaliyeed iyo dadweynaha Allah hortiisa waa iga cafis waan iga masaamax waxaan kaloo raaligelin u jeedinayaa xildhibaan kasta iyo muwaadin kasta oo ka xumaaday inaan ka dego mansabka guddoonka golaha shacabka ayagan waxaan leeyahay aniga bani aadam ahaan sidan ayaan dhaafi waaye ee sidii roon rabbaa og sidaad ka wada warqabtaan 28 Agoosto 2012 markii la ii doortay xilka gudoomiyaha baarlamaanka sagaalaad ma jirin baarlamaan sideedaad ama wax lagala wareegay maadaama sanooyin ka horba khilaaf ku kala dirmay oo dumay dhab ahaantii baarlamaanka sagaalaad wuxuu shaqada baarlamaan isida ka bilaabay meel eber ah oo abuuq hor leh waxaan kaloo dhaxalnay dal ku jiray marxalad ku meel gaar ah una baahnaa in laga bixiyo ku meel gaarnimada loona dhiso dawlad xor ah oo ku hagoogan gobonimo madax bannaan mudanayaal shaqada baarlamaanka sagaalaad uu ku howlgalay ma ahayn shaqo fudud wuxuu ahaa baarlamaan looga baahnaa inuu horta asaga isdhiso isla markaana damaanad qaado dhisidda laamaha dawladda iyo hay'adaha kale ee kaabayaasha dawladda xildhibaano iyo muwaadiniin badan baa sabar iyo dhabar adeeg ugu soo mintiday guulaha iyo nidaamka maanta lagu shaqaynayo iyo hay'adaha dawladeed noo dhisan xildhibaano badan iyo howlwadeenno golaha shacabka ka tirsan baa loo dilay kuwa badanna loo dhaawacay mahad allaale ee waxaa noo suurtagelay inaan dalka ka soo guurino kana soo bixinno marxaladii ku meel gaarka ahayd oo loo gudbay dawlad ku dhisan lehna nidaam dastuuri ah waxaa la unkay dhaqan dimuqraadiyeed daahfuran dadweynuhu mahadiyey una suurtageliyey in lagu soo maamulo 3 madaxweyne si daahfuran dagaal la'aan xilka loogu kala wareejiyey sidoo kale markii nala doortay sanadkii 2012 waxaan joojinay inaan shilin dambe khasnada dhexe laga bixin karin miisaaniyad la'aan oo golaha shacbiga uusan fasixin ilaa hadda waxaa la soo ansixiyey 8 miisaaniyadood iyo xisaabtiyo sanadeed oo ah ilaa 2016 waxaan idin tegayaa baarlamaan xiriir shaqo iskaashiga leh dhammaan golayaasha xeerjidka dowlad-goboleedyada Soomaaliyeed waxaan idinka tegayaa baarlamaan xiriir shaqo iskaashiga leh dhammaan baarlamaanada adduunka waxaan idinka tegayaa baarlamaan heshiisyo is-afgarad iskaashiga leh baarlamaanada dowladaha xiriirka walaaltinimada gaarka ah lagu leenahay ka naga dhashay waxaan idinka tegayaa baarlamaan leh guddiyo saaxiibtinimo gaar ah la leh baarlamaanada dowladaha laga dhexeeya iskaashi siyaasadeed goboleed carbeed afrikaaneed iyo khibrad wadaagga khibrad istaasiyo baarlamaanka waxaan idinka tegayaa baarlamaan leh xusuustaan hay-adeed ama institutional memory loo yaqaano oo howlihii uu soo qabtay ku kaydsan yihiin dukumentiyo qoran iyo kuwa maqal iyo muuqaalka leh lana heli karo xildhibaan walba wixii maalin uu ka yiri golaha waxaan idinka tegayaa baarlamaan baraarugsan oo karti iyo aragti wadannimo leh oo soo shirgudoomiyey qadiyado badan oo qarameed oo culus oo masiiri ahaa dalka lasoo gudboonaaday ay ka mid yihiin arrimihii soodimaha badda waxaan idinka tegayaa baarlamaan shacbigu ku dhegowdow markii uu ka dalbado qadiyad uu la weydaro golaha xal u helidiisa u soo xeelanaas
waxaan idinka tegayaa baarlamaan ay u diyaar yihiin mashaariic ismo cusub ee xarunta golaha ummadda oo hoy u noqon doona baarlamaanka federaalka soomaaliyeed labadiisa aqal iyo xarun kale oo kumeelgaar ah oo u noqon doonto xarun kumeelgaar ah golaha shacbiga oo sii shaqeeyo laguna dhisi doono bilaagiisa kuna xiji doona malaayiinkooda lana filayo in ismahooda ay dhamaadaan muddo labada sano soo socota dhismooyinkan oo bilicda muqdisho wax weyn ku kordhin doona baarlamaanka koobnaad ee jamhuuriyaddana uu si buuxda u dhexi doono waxaan idinka tegayaa baarlamaan shacbiga soomaaliyeed ku faani karo inkasta oo hawlihiisa iyo maamuusiisa ay baarlamaanada dowladaha carabta iyo afrikaanka la tartama qaarkoodna ayba majaxsadaan anigoo aada u dhiirigelinayo iskaashiga anigoo aada u dhiirigelinayo annagoo aada u dhiirigelinayna iskaashiga u dhexeeya laamaha waaweyn ee dowladda haddana waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo kala madax banaanida hay-adaha dowladda iyo kala socnaanta dowlaha waayo haddii isku xadgudubka hay-adaha dowladda oo aan la xakamayn ama indhaha laga qabsado waxaa hubaal ah inaan u horseedayno nidaam keliteliye iyo takifad awoodeed oo aan cidda korjoogteen karin saas daraadeed waxaa iga dardaaran ah inaad aada u ilaalisaan in madax banaanida baarlamaanka lagu soo xadgudbay waxaa kaloo iga dardaaran ah in casharada aan maalmahan ka baranay aada loo diiwaangeliyo si looga faa'iidaysto oo aan hoosaadkeena ku naxlijihino wixii toosin aana ku samayno si kastoo xaajada xaajo culus loo horkeeno ay tahay marna inaan ku degdegin baalmarinta axkaamta dastuurka hoosaadka iyo shuruucda kale ee dalka haddii ay nala soo gudboonaadaan arrimo masiiri ah xal nooga baaxa sida mashkiladda hadda aan ka soo baxnay ha lagu dadaalo horta in si fiican loo hinjiyo si qodo dheerna loo hubsado nuxurta khilaafka ama aan ku kala rayduwanaanta ka bacdina loo hago in heshiis siyaasadeed lagu haliyo ayadoo marna aan la ilaabayn in allahu subxaanahu watacaala uu jecel yahay in dadka dhexdiisii maslaxo la dhigo haddii arrin aada isku khilaaftaan ilbaxnimada ma aha in koox loo kala qoqoobnaado arrintaas waa in aan ka gelbi baxnaa waxaa haboon in laysu socdo la kulmo laysa shaacago si xigmadaysada laysu weydaashado laysu qalbiyo taasi waxay fududeynaysaa soo dhaweynaysaa xaajifalka waxay soo dhaweynaysaa xallinta mashkilada ugu dambayntii mudana gudoomiye iyo mudanayaal waxaan ballan qaadayaa inaan meel ugu soconin oo aan idinla joogayo anigoo hadda aan idinsoo gacan banaanaaday aan dadaal hor leh aan dhowr jeer jibaayi doono gudashada xilkeyga xildhibaannimo waxaan ballan qaadayaa inaan si buuxda ula shaqayn doono gudoomiyaha cusub aan dooran doono si tayada golaheena inuu kor u kaco mooyaane mar uusan hoos uga socdeen aan wada ballan qaadno in xudkun kasta aan halkan ku reebno aan isu caloolfiyoogaano aan iscafino oo aan u kuntixirino u adeegida shacbiga iyo howlaha koryaala idinkuna ii ballan qaada ilaa inta aan ka ilaabayo gudoominimada maalmaha hore inaad ilaahay inta aan ka ilaabayo gudoominimada maalmaha hore inaan si booqasho badnaano maadaama aan shanta iyo dheeraad aan dheer ku xirnaa aan hadda soo madax banaanaaday si aan ii bataa xamar meelaha laga gala iyo meelaha lagu qaxo si waafaqsan dhaqan dowladeedka laga bilaabo maanta unbaa tahay rasmi ahaan kusimaha gudoomiyaha
فضلا يسأل أفضل inaan doorano guddoomiyaheena cusub aniguna muddada gudaheeda aan ku howlgalo diyaarinta xilwareejinta rasmiga ah iyo maamulka iyo hantida go-ah allah subxaana watacaala waxaan ka baryayaa in uu nawaafajiyo inaan doorano guddoomiye u hor golaheena oo nagu haga si wanaagsan nagu haga ilaalinta sharciga فريدة فضل ليس الدنيا فريدة فضل ليس فضل الله سبحانه وتعالى عن كبر من الله يتوسعه وفجيه الله سبحانه وتعالى عن كبر من قلبك يسوع اللهم أهل بين قلوبنا اللهم أهل بين قلوبنا اللهم أهل بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور زدنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وباركنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين اللهم اجعلنا شاكرين اللهم اجعلنا شاكرين اللهم اجعلنا شاكرين بكل نعمة التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل عملا صالحا ونعمل عملا صالحا ونعمل عملا صالحا الله واصلح ذات الرجال توجهنا في ذلك السالحين برحمتك وحكمتك يا ارحم الراحمين يا خير الراحمين اله الصومال قلبك الصوم اله الصومال عبد الروح اله قوله من نوم الهي اله امته النفس كفي الرحمن الله قفتك حتى ندور قفتك حتى تبقى حرمتك الهي كل اسير سبحانه وتعالى والصلوات على السلام عليكم